تحيات لله والصلوات الطيبة السلام عليكم أيها النبي waxaanu galay raabka si aan uga gaarsado kuwii noloshaygu bahdilay cuqdadaas darteed ayaanu qirtay inaan galo 3 sannadood oo xabsi ah oo xaqdarro ah waan muslimay aakhirkii waxaan qaatay diinta islaamka markaas ayaan dareemay qabow iyo naxariis gacantayda waxaa ku soo muslimay saaxiibo badan iyo fanaaniin caana kuwaasoo aan u soo jeeday diinta islaamka hadda waxaan ahay islaam alxamdulilah وقار كميدا هذا فنان كي كليجي صعد كاها هوبل كي معجزة فانك كيفن جيتس أشهد الله إله إلا الله مانتا waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkeena raabarkii fanaanka cajaybta badan ee Kevin Gates kaasoo inaga codsadeen marar badan saaxiibadina ku taxanbarteena YouTube ee Baldab TV balse ka hor inta aynan gelin barnaamijka iyo qisada qaraarkii macaanka bale ee Kevin Gates ku sharaf muuqaalka like riix buttonka subscribe si aanay ku dhaafin muuqaalada dambe aan hubayn aad u xiiso badan yihiin lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay. They were refreshing and I was like I could talk to you all day. It gave me life. si aad ila fahanto xogta dareenka badan ee Kevin Gates sababta ka dambaysa inuu muslimo iyo dhibkii uu ka maray jeelka aan isweydiino marka hore oo kuma Kevin Gates si ay noola qabsadaan kuwa ugu horeeya muuqaalkani. The deal when I'm on shrooms, I'm being entertained. I'm entertaining people. I don't really mean this shit. ninkan asalka magaciisa waxa la yiraahdaa Kevin Jerome Gilead waxa uu dhashay 5 February 1986 waa fanaan songwriter iyo American rapper dhammaystiran kaasoo xirfadiisa iyo dhuuntiisa cajaybta badan ku kasbaday malaayiin taageerayaal waana sababta ka dambaysa inuu dhagaheena soo gaadho magaca cajaybta badan ee Kevin Gates waxay iska dhalay aaba African American madow ah iyo sidoo kale hooyo u dhalatay waddanka Puerto Rico oo Puerto Rican ah yaraantiisii wuxuu ku soo barbaaray kuna soo koray nolol adag kadib markii familkiisu ay u guureen mid ka mid ah magaalooyinka ugu rabshada badan waddanka Mareykanka gaar ahaan koonfurta Mareykanka Louisiana iyo caasimadeeda Baton Rouge oo ay ka soo baxaan dad wada fidhab ah. Label Dead Game Records. His career blew up. Kevin wuxuu ahaa mid markasta iska hor yimaadaan aabihii dhanka barbaarinta iyo tarbiyadda ilaa uu gaadhay inuu xataa guriga ka eriyo yaraantiisii xilli uu dacwadiisa iyo dagaalkiisa ka fadhiisan waayey wiilka camalka xun iyo fanaanka Kevin Gates. ugu dambayna aabihii waxa uu dhintay isagoo jira 14 sannadood sida la sheegayna waxa uu dhintay odagaasi xanuunka AIDS oo la noolaa muddo badan. In a stolen vehicle back in 1999, Gates was brief. Kevin wuxuu sheegay inay jireen dad gumaysi kula kacay yaraantiisii kuwaas oo markasta cunsuriyada iyo dagaalka la hordhiman jiray ilaa ay iska dilaan marar badan oo ay isu qabtaan taasoo ku ahayd dhaawac iyo qalbi jab kuna abuurtay calool xumo aan baaba'aynin. gebi ahaana wuxuu sheegay arrintaasi inay ahayd mowduucii ugu weynaa ugu biiray fanka kadib markii uu galay tiim si ay uga warsadaan oo ay wax uga celiyaan isaga ugana difaacaan raggaasi. wuxuu sheegay gebi ahaanba tiimkaasi in isaga ka awood badnaayeen kana wada feedho weynaayeen balse waxa uu yidhi waxaan u ballan qaaday mar inaan noqon doono maroodi iyaga qariyo gebi ahaanba waana sababta halhaysta magaca ereyga maroodiga uu la socdo markasta magaciisa Kevin Gates. علشان فنانكني وفنك كبيرهم بوحو صوغ علي عقدد يعركو جرتي تاسو كو كلفتين ونقضى رابر يفنان كاينو نقاني Kevin Gates. For what I believe in. I stand for what I believe in. My grandfather always. هدبا انت اينان قلين سببتو مسلمي بلان تابانو قار كميده هيسيسا لوغو اقونسيق بدن يهي يسيدو كالي arrimaha jeelka ee ugu caansan nolosha Kevin Gates. For defending myself, you know what I'm saying. Kevin walow qaaday heesa badan haddana waxaa jira heesa caan ah oo aan marnaba laga xiiso goyn dhanka raabka sidoo kale waxaa fanaankan heesiisa ka muuqata mar kasta murti iyo ereyo ka culus kuwa dhanka raabka iyo fanaaniinta kale ee la midka ah ee asaagiisa kuwaas uu kaga hadlayo gafka cunsuriyadda iyo sidoo kale qaladaadkii looga galay yaraantiisii taasoo sababtay xataa inuu gebi ahaanba soo galo fanka waxaana ka mid ah heesahaas heesta Not Only One
oo uu sheegaya ixtiraamka iyo qiimayntu inaanay ahayn hal qof ee qof kasta uu u baahan yahay sida ereyga iyo magaca guud ee heesta oo caddaynaya middaasi oo ah not the only one ma aha mid keliya. sidoo kale heesta hardfor oo uu iyana ku tilmaamayo inuu markasta isdifaacayo ilaa iyo dhammaadka taasoo muujinaysa ficilka iyo wax iska celinta ku jirta fanaankan taasoo ah arrintii uu fanka u soo galay. Two phones, really iyo hard to sleep heesahaasi ayaa kale oo jira oo iyaguna tilmaamaya gebi ahaanba xaaladahaasi xaalado ku dhow. walow heesta hard to sleep iyadu si weyn u tilmaamayso inuu leeyahay ma seexan karo hurdada ayaa igu adag arrintan oo la xidhiidha falan xun ay kula kaceen yaraantiisii dad xataa isku dayay inay ku sameeyaan dhaqamaadu fool xun waana sababta uu mar walba u dareemayo culayska aadka u badan iyo fakarka raabarka iyo fanaanka mucjisada Kevin Gates. No, we gonna have to start being friends. intaasoo keliya ma aha nacaybka iyo cuqdada ka muuqata fanka iyo fanaanka Kevin Gates heesihiisa sidoo kale waxaa jirtay hees la yidhaahdo Super General walow aanay heesiisu kala wada dhicin intooda badanna ay ka wada hadlayaan nacayb cunsuriyad loo geystay iyo xumaan hore oo lagula soo kacay yaraantiisii haddana waxaa jirta hees kale oo gaar oo iyadana leeyahay Super General oo ah heesta uga yaabsaday fanaaniin badan qaabka uu qaadayo beatka uu ku heesayo sidoo kale freestyle-ka uu muujinaya waqtigaas. intaas haddii aan kaga soo gudubno arrimaha fankiisa iyo sidoo kale ficilada ka muuqanaya heesihiisa aan u soo gudubno dhanka kriminaalka iyo arrimaha jeelka raabarkan ka hor inta aanu islaamin iyo sidoo kale wixii uu la kulmay. kama baragta wa alla Ibrahim wa alla ali Ibrahim innaka hamidum majid. ninkan ma aaminaysid qaabkii lagu xidhay markii koowaad waxaa isagoo saaran gaadhi oo ka mid ah rakaabka saarnaa gaadhigaasi soo weeraray qolo roobari ah ama sidoo kale shufto kuwaasoo doonaya inay baadhaan gaadhiga balse dadkii oo dhan gaadhigii waa ay ka dejiyeen wixii ay baadhanayeenna waa ay baadheen sidoo kale waxay afduubteen ninkii iyo gaadhigiiba dalawarka ahaa isaga iyo qaar kale oo ka mid a dadkii rakaabka ee meeshii lagu rogay ayaa waxaa la geeyey jeelka waxaana la weydiiyey waxyaalihii ka dhacay meesha balse waxaa yaab lahayd fanaankan gebi ahaanba inuu muujiyey arrimo la yaab leh oo aad mooddo inuu ku maadsanayo wixii meesha ka dhacay isagoo yidhi waxba igama igelin roobariga iyo cidda dadka soo weerartay aniga taasi ma aha mid ii taalla arrintaasi darteedna waxaa u galay jeel walow aanu ku raagin da'diisa oo ahayd 13 jir ayaana ahayd wixii loogu cudurdaaray hadalladii foosha xumaa uu ka yidhi goobtaas cuqdadu ninkana waa mida uu la soo weynaaday yaraantiisii Kevin Gates. mercy nor plans to alleviate the link. mar kale sanadii 2008 markaasoo fankiisu bilow ahaa muddooyinkii uu cusbaa fanka ayaa Kevin Gates lagu eedeeyay hubiyo inuu kala gudbiyey gebi ahaanba kana ganacsaday waxyaalo sharci darro ah waxaana afka loo geliyey 3 sano oo xadhiga kadib markii ay ku caddaatay arrintaasi wuxuuna tilmaamay inay ahayd markii ugu horreysay uguna xumayd noloshiisa ee uu dareemay ciqaab iyo xanuun waan qirtay ayuu yidhi dembiga anigoo doodi karayay waayo waxaan ka dareemay qalbiga xanuun jeelkana waxaan u doortay nasasho sidaasina waxa uu ku soo qaatay raabarkii fanaanka caanka ee Kevin Gates 3 sano oo isku bixisa ilama ayuu ka gaadhay 2011. Expletive with you. I always stood tall. Look, I learned from my grandfather. markii uu soo dhamaystay 3 sano oo xadhiga fanaanka Kevin Gates waxa uu soo baxay isagoo ka adag bir gebi ahaana muuqaalkiisa oo dhan isku soo bedelay jeelka sidoo kale noqday qof aad u qalbi adag keliyana doonaya waxa uu awoodda saaray inuu noqdo fankiisa kana fogaanaya gebi ahaanba dambiyada. Kevin wuxuu gaadhay adduunka oo dhan inuu gaadhsiiyo fankiisa intii u dhaxaysay sanadii 2011 ilaa 2014 taasoo keentay inay la loolamaan lana xifaaltamaan raabaris iyo fanaaniin kale waqtigaas balse wuxuu lahaa markasta ereygiisa caanka marnaba aan ka hadhin fanaankan Kevin Gates
ee ah waxaan ahay maroodi waan idin qarin doonaa intiinayna xifaaltamaysa. intaasoo keliya ma aha waxyaalaha lagu soo eedeeyay iyo kriminaalka iyo dembiyada uu galay raabarkani mar kale intii uu caanka ahaa ee uu fanka ku jiray isagoo show ku qabanaya murqaweynaha reer Maraykan iyo gobolka Kevin Gates gudaha Florida ayaa sanadii 2015 lagu soo oogay dacwada inuu laad ku dhuftay beerkana uu kaga dhuftay gabadh fanaskiisa ka mid ah isagoo masraxa ka heesaya waxaana uu ku dacwooday sidan. ugu dambayn waan heesayay Marika Gavana waan watay iyadoo waxay isku dayday inay soo jeediso sida ay sheegayso balse surwaalka ayay iga saartay surwaalka arrinta ayaa noqotay mid lagu maadsado waana arrinka uu leeyahay waan diiday markii aan ku jiray showga sidaasina ayaa gabadha waxay iga gaadheen. maxaad filaysaa in lagu xukumay markaa raabarkii mucjisada fanaanka caanka ee Kevin Gates? Podcast, me doing a podcast. walow uu qabsaday qaranno iyo dadudooda maxkamadda intii uu ku jiray haddana arrintaasi waa ay ku caddaatay waxaana lagu xukumay fanaankan 180 maalmood oo xabsi ah. waase la soo daayay aakhirkii iyadoo lagu ixtiraamay dhaqamo qurux badan oo uu ka fuliyey gudaha jeelka ficilo wanaagsan uu ka sameeyey iyo sidoo kale caawimo badan iyo dhaqamo fiican oo ciidankii askartii jeelka ku jirtay kula dhaqmayay. sidaasina ayaa lagu soo fasaxay fanaanka iyo raabarka caanka ee Kevin Gates. Attahiyatu lillahi wa salawat. haddaba aan isweydiino sidee ayuu ku qaatay diinta islaamka Kevin Gates kadib markii uu si kadisa uga soo muuqday isaga iyo xaaskiisu gudaha xajka halkaasi uu ka soo gudbiyey sawirro qurux badan iyo muuqaallo gabi ahaanba dhaqaajiyay dadka dareenkooda. maxayse ahaayeen hadalladii uu kaga ilmaysiiyey dadka gabi ahaanba iyo ficiladii quruxda badnaa uu halkaasi ku muujiyey Kevin Gates sanadii 2016. Beautiful this is. We're in the slums right now. isagoo ka sheekaynaya sababtii uu islaamay iyo arrinkii ku kalifay inuu qaato diinta islaamka ayaa waxa uu yidhi sidan. waxaan dareemay cidhiidhi nolosha waxay ahayd mid qallafsan waxaan noqday qof maraya gebi ahaanba laba xaaladood oo ah mar uu heesayo oo fanka ku jiro iyo sidoo kale mar uu xabsi galo oo lagu eedeeyo dembiyo. noloshoo dhan waxaan ku dareemay ciqaab gebi ahaana waxaan noqday dismoral. balse maalin maalmaha ka mid ah waxaan akhriyay sheeko ku saabsan nin faqiir oo islaama oo odhanaysa sidan. muu haysan wax hanti ah balse wuxuu haystay diin iyo cibaado. muu haysan guryo qurux badan balse wuxuu haystay oo deganaa guri yar oo buula waxaase uu ku noolaa nolosha ugu quruxda badan iyo deganaanshaha qalbiga ee ugu sarreeya. arrintaasi ayaan la dhacay waxaanan akhriyay mawduucyo badan oo ku saabsan diinta islaamka balse gebi ahaanba arrintaasi waxay igu keentay inay si dhab ay soo jiidato ina soo kalisa diinta islaamka. waxaana sii darsay markaasi inaan barto waxyaalo badan oo diinta islaamka la xidhiidha waxaanan ogaaday inay tahay diintan adduunka ugu macaan uguna naxariista badan inay tahay biis iyo amni iyo nabadgelyo mar kastana islaamku yahay kan ugu quruxda badan leh. wixii ugu horreeyey ficiladii ugu horreeyey aan sameeyana waxay ahaayeen salaada sadaqada iyo sidoo kale inaan aado xajka. wuxuu intaa ku sii daray Kevin Gates idinkama sheekayn karo maalinkii ugu horreysay aan xajka tago arrintaas xataa kama hadli karo dareen ahaan imika. waxaan u soo bandhigay kana sheekeeyey arrimo iyo erayo ficilo gebi ahaanba ku kalifay dad badan inay islaamaan kana ilmaysiiyey qaar badan. maxaad filaysaa hadalladaasi inay ahaayeen fanaaniinta iyo raabariskii kale oo dhan gebi ahaanba ku soo kalifay inay qaataan diinta islaamka? Somebody asked what made me and Drika become Muslim. Kevin Gates sidan markii uu ka hadlayay arrimaha xajka wuxuu yidhi mid ka mid ah ilaaladii xajka ayaa yidhi waxaad dunkataa dhagaxa ku yaalla xajka balse markii aan gacantayda gaadhsiiyey ayaan kurbaday gebi ahaanba waxaanan dareemay qabow saa'ida inuu soo galay jidhkayga taas waan u adkaysan waayey iguna kaliiftay xataa inaan dhaco balse waxay qabatay xaaskayga oo ila socotay markaa kadib halkaa waxaa jiray arrimo waaweyn oo aan ka sheegay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen qiimaha ay leedahay diinta islaamka iyo sidoo kale gabadhayda waan u ballan qaaday arrin cajiiba
oo ahayd inaan la noolaanayo ilaa iyo dhammaadka inta aan noolahay. sidoo kale waxaan duubay muuqaallo dareen badan leh kuwaasoo ku kalifay faaniskaygii gebi ahaanba inay soo galaan fanka intoodii badnayd, gaar ahaan kuwii qalbiga fura aniga iyo fanaaniintii aanu saaxiibada ahayn. intaasoo keliya ma aha, waxaan ku soo daray markaasna shahaadateynka u qabtay fanaaniin badan iyo raabariskii wakhtigaa loogu waalida badnaa aadkana loo jeclaa dhanka raabka. Kevin Gates waxaan ku tusayaa muuqaal qurux badan oo uu ka qabtay fanaanka caanka ee aadka loo jecel yahay Moneybagg, oo uu qabanayo shahaadateynka uuna tilmaamaya qiimaha diinta islaamka. Say ashhadu Allah ilaha intaasoo keliya maaha, waxaa jira fanaan kale iyo xiddi kaloo aad loo jecel yahay kaasoo ku soo daray uuna tacriifiyey qiimaha ay leedahay diinta islaamku. fanaanka Kevin Gates waana fanaanka loo yaqaano Dave East, raabar aad loo wada jecel yahay fankiisa oo ay ku xidhan yihiin malaayiin qof oo taageerayaal ah. intaasoo qura ma aha, ninkii ugu waala ayuu ku soo daray sidoo kale fanka laguna jacaylka badnaa raabariskii Ray 7kan jiray. kumaad filaysaa inuu yahay fanaankaas aadka u cajaa'ibka haysana taageerayaasha ugu badan wakhtigan, kaasoo ku soo daray uuna sheegay qiimaha ay leedahay diinta islaamku, isna sidoo kale uu qabtay shahaadateynka. God's creations is really the same. I'm just talking to the people that don't know. haddii uu nagu soo gudubno ficilladii quruxda badnaa uu sameeyey Kevin Gates iyo fanaaniintii uu ku soo daray kadib markii uu qaatay isagoo diinta islaamka, saaxiibadiisii ugu dhawaayay sidoo kale raabariskii ugu waaweynaa gudaha Ameerika. aan isweydiino kelmado kaftan oo ay dad badani ku tuureen iyo sidoo kale qaar Kiristana eraya ay ku rideen fanaankan iyo sidii ugu falceliyey. waxay ku yidhaahdeen maadaama aad islaam noqotay, diintaadu waxay bannaynaysaa inaad guursato 4 dumar ah. imisa ayaa doonaysaa adigu inaad guursato? Kevin Gates maxaad filaysaa inuu ugu jawaabay? Stand myself. waxau yidhi Diinta islaamku waxay bannaynaysaa 4, balse hadda waxaan qabaa boqorad. ma odhanayo iyada ayaan qabayaa ilaa dhammaadka, balse hadda iyada ayaan ku niyadsamahay, iyada ayaanan la joogayaa. arrintaas oo mar kale furtay kaftankii iyo sheekooyinkii qosolka lahaa oo ah waxaa jira dumar kale oo hunguraynayo raabarkan iyo fanaankan Kevin Gates. haddana Kevin waxa uu ka mid yahay kuwa loogu ictiraamka badan yahay, loogu qiimaha badan yahay dhanka raabka iyo sidoo kale shakhsiyaadka ugu magaca weyn gudaha dhanka Ameerika iyo North America. fanaankana sidoo kale waxa uu dheer inuu yahay mid ka mid ah dadka ganacsiyada waaweyn kula waddankaasi. intaasna waxaan ku soo afmeeraynaa qisada xogta iyo fanaanka Kevin Gates iyo sida uu ku qaatay diinta islaamka. sidoo kale ha ilaawin inaad ku sharafto muuqaalka like, subscribe haddii aad nagu cusub tahay si aanu kuu dhaafin muuqaalka xigo aad u xiiso badan, lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.